Vladimir Putin waxa uu uga digay dhigiisa Mareykanka Joe Biden in haddii la soo rogo xayiraado cusub ay horseedi doonaan in gebi ahaanba uu meesha ka baxo wixii xiriir ah ee ka dhaxeeyay labada dal. wadahadal ay telefoonka ku yeesheen labada mas'uul xalay fiidkii ayaa waxa uu ku sheegay in xayiraadahaasi ay noqon doonaan gef aad u weyn. Mr. Biden dhankiisa waxa uu u sheegay Putin in Mareykanka iyo xulafadiisa ay jawaab adag ka bixin doonaan wixii duulaan ee lagu qaado Ukraine. wadahadalka telefoonka oo Ruushka uu dalbaday ayaa waxa uu ahaa kii labaad ee labada nin dhex mara bishan gudaheeda waxaana uu soconayay muddo saacad ku dhow. wuxuu astaan u yahay dadaalkii ugu dambeeyey ee la doonayay in lagu qaboojiyo xiisadda ka taagan soohdinta dhinaca bari ee Ukraine ay la leedahay Ruushka, halkaas oo 100,000 oo askari oo Ruush ah la soo dhigay, waxaana taasi ay dhalisay walaaca ay reer galbeedku qabaan ee keenay in Putin ay xayiraad ugu hanjabaan, kuwaasoo lagu tilmaamay kuwo aan hore loo arag haddii Ukraine la weeraro. Evelyn Farkas waxa ay ahayd kaaliyihii xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka u qaabilsanaa maamulkii Obama dalalka Ruushka, Ukraine iyo gobolka la yiraahdo Eurasia sanadihii u dhaxeeyay 2012 ilaa 2015. waxa walaac ay ka qabtaa sababaha ku dhiirigeliyay in madaxweyne Putin uu wadahadalkan telefoonka dalbado. ma cadda inuu isku dayayo inuu sii huriyo ama yareeyo khibraddan u leeyahay Vladimir Putin. waxaan ku jiray Pentagonka 2014 markii ugu horeysay ee uu ku dhawaaqay qabsashadiisii geyiga Ukraine ee Crimea kadibna Donbass. waxay ii sheegaysaa inuusan u muuqan mid aan isku dayaynin inuu sii huriyo. marka waxa uu samayn doonaa dalabaadyo dheeri ah amaba waxa uu qaadi doonaa tallaabada madaxweyne Biden ama labaduba. inkasta oo labada dhinac ay digniino isdhaafsanayeen markii ay wada hadlayeen labada mas'uul ayaa misna Yuri Ashakov oo talo ka bixiya siyaasadda arrimaha dibadda ee Ruushka waxa uu wariyeyaasha u sheegay in Mr. Putin uu la dhacsanaa wada hadalka kaasoo abuuray buu yiri in mustaqbalka ay labada dhinac si aanbaqaadaan wixii laga hadli lahaa. Ivo Dalder waa danjirihii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa gaashaanbuurta NATO, iminkana waa guddoomiyaha hay-adda la yiraahdo Chicago Council. waxa uu ka hadlayaa ujeeddada uu leeyahay Putin. He wants to control the future of Ukraine, the future of Belarus, the future of the Caucasus. waxa uu doonayaa inuu kontrolo mustaqbalka Ukraine, mustaqbalka Belarus, mustaqbalka wadamada Qowqaaska, oo waxa uu doonayaa inuu ka hor istaago inay ahaadaan dalal madax bannaan oo dimuqraadi ah oo doonaya inay ku biiraan galbeedka. waxa uu doonayaa in dalalkaas uu go'aamiyo waxa uu isagu rabo, halka ay iyagu go'aansan lahaayeen waxa ay doonayaan. su'aashuna waxay tahay muxuu yahay qiimaha uu doonaya inuu ku bixiyo si arrintaas ay ugu suura gasho. labada dhinac ayaa iminka waxay isu diyaarinayaan kulan ay foolkafool ugu yeeshaan magaalada Geneva bisha dambe. aqalka cadna waxa uu sheegayaa in Mr. Biden uu dhigiisa Ruushka weydiistay in la sii wado baadigoobka xal diblomaasiyadeed. wariye BBC-da ka tirsan ayaa sheegaya in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo adag laakiinse micno leh. Ukraine kama mid aha gaashaanbuurta NATO, laakiinse xiriir adag ayay la leedahay xulafada. xiisadda u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine ayaa waxa ay taagnayd tan iyo sanadkii 2014 markaasoo Ruushka uu dhulkiisa ku darsaday gacan biyoodka la yiraahdo Crimea, isaga oo isla markaana taageero siiyey koox gooni u goosata ah oo ka dagaalamaysay bariga Ukraine, halkaasoo dagaallo ka dhacay ay ku dhinteen ilaa 14,000 oo qof.